waa qaybtii 13aad iyo barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha. Waxaanse barnaamijka maanta ku arki doonnaa qaar ka mida su'aalaha Instagram-ka. Su'aasha koowaad: walaal, waxaan ku weydiiyey su'aasha ah maxaa ka jira Coca-Colada qoraalkeedii la yiraahdo waxaa lagu qoray laa Muxammadan walaa Maka, mise waa hadal Soomaalida ay iska tiraahdo oo waxba aanan ka jirin? Mahadsanid. Hadalhaynta qoraalka Coca-Colada waa hadal dunida muslimiinta oo dhan caan ka dhex ah, mana aha wax ku kooban Soomaalida oo keliya. Xaqiiq ahaanshaha qoraalkaasina raadintiisii in badan ayaa la isku dayay in laga daba tago. Nidaamka qoraalka Coca-Colada ay u qoran tahay farteedii jiifjiifka marka gadaal loo fiiriyo si maldahan oo aanan la fahmayn ayaa waxaa ku qoran Nebi Maxamed iyo Mako wax la dhahaa ma jiraan, qoraal uu micnihiisu yahay. Shirkadani Coca-Colada asalkeedii si kastoo loogu sheego in shirkad Maraykan ah ay tahay, haddana dadka badankoodii waxa ay rumaysan yihiin shirkad ay Yahuudda leedahay in ay tahay. Xilligii Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee, sida kitaabka Qur'aanka Kariimka uu sheegayo, Yahuudda nebigu waxa ay kula hadli jireen hadallo meeldahan oo caay iyo jees-jees iyaga oo iska dhigaya sida dad toosan oo kale. Qur'aanka Kariimka waxa uu leeyahay Nebi Maxamedow yuxayuuka bimaa lam yuxayika bihi Allah, waxa uusan alle uusan kugu salaamin ayay kugu salaamayaan. Hadalladani meeldahan ee wax lagu qariyana Yahuudda caan ayay ku tahay. Qoraalka Coca-Coladana dhab ahaantii ma sida ayaa loola jeedaa ama waa wax aanan isqusayn oo qaabka oo keliya u muuqda? Niyadda dhabta ee ka dambaysa qoraalkani marnaba ma ogaan karno, laakiin Yahuudda ama qof walba oo aanan muslim ahayn waa wax mar walba laga filan karo. Su'aasha xigta: assalaamu calaykum. Su'aasheedu waa aniga oo weyse qaba ayaan social mediaha galay, Instagram ama Facebook tusaale oo kale. Waxaa iga soo horbaxay sawir qaaban oo gabar ah, marka weysada ma iga jabtay ama hees qof dhagaysta ayaan maqlay, weysada ma iga jabisaa? In badan ayaan ku sugay su'aalahaygii inaad iga soo jawaabto. Waxaan rajaynayaa inaad igaga soo jawaabto adiga oo mahadsan. Soo ifbixidda aaladda social mediaha kadib, su'aalahani waxa ay noqdeen kuwa si aad ah culimada ugu soo bata. Waxyaabaha weysada qofka ka jebiya iyo waxyaabaha aanan weysada jebin farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya. Qofka isaga oo weyse qaba ayuu dembi u geli karaa, haddana qofka weysadiisu ma ay jabto, sida adiga oo weyse qaba in been aad sheegto. Si tan la mida, qofka sawiro diinta ay mamnuucday in la fiiriyo isaga oo weyse qaba, bishardi haddii uusan qofka ku raaxaysi, dareen ama kacsi iyo waxyaabo la mida sawirada uusan ka qaadin, weysada kama ay jabto. Fiirinta sawiradanina qofka waa uu ku dambaabayaa, sidoo kalena dhagaysiga heesuhu weysqaadka kuma uu jabo. Su'aasha kale xigta: assalaamu calaykum ustaad, magacaygu waa Faysal. Waxaan ku weydiinayaa labadani su'aalood, waxaan rajaynayaa inaad iga soo jawaabi doontid. 1. sidee ayay ku kala faracmeen luuqadaha adduunka oo dhan? 2. mayga iyo maxaatiga keebaa asal ah? Mahadsanid. Luuqadaha bani'aadamka uu ku hadlo ilaa lahjadaha sida ay ku bilowdeen waa mawduuc aad u adag oo cilmiyan wax jawaabah aanan loo hayn. Iska baddaa luuqadaha bani'aadamka sida uu hadalka uu ku bilaabay, xitaa aqoon-yahanadu ma ay fahamsano. Su'aalaha ugu adag evolution-kuna mid ka mida waa su'aashani luuqadaha. Waxaa jira fikrado aqoon-yahanadu ay ka dhiibteen arrintani, laakiin lama hubo in sax ay yihiin. Sida evolution-ka uu qabo, bani'aadamkii ugu horey ee Afrika ka soo baxa luuqada aad isugu qasan ee dhammaan luuqadaha adduunka oo dhan ay ku wada jirto ayay ku hadli jireen. Maanta luuqadana qof taqaana ama qof ku hadashaana adduunka ma ay saarno. Kala fogaanshaha dadka iyo guuritaanka qarniyo kadib, luuqadihii isbeddel badan ayaa ku dhacay. Sida maantaba 100
sano ka hor af Soomaaligii lagu hadli jiray dadka maanta mid ka duwan ay ugu hadlaan. Yacni sida la wada ogyahay, luuqaduhu isbeddel badan ayaa ku dhaca. Isbeddeladanina waxaa sababa deegaanka iyo erayo qalaad oo bannaanka dadka uga imaada. Dadka maanta xitaa iyaga oo hal luuqad ku wada hadlay ayay haddana lahjadoodii kala duwan tahay. Qofka waqooyi ka imaaday iyo qofka koonfur Soomaaliya ka imaaday isku lahjad ama isku dhawaq marnaba ma ay noqon karaan. Waxaana halkani laga fahmayaa luuqadaha iyo dhawaqoodii waa wax hadba deegaanka qofka isku badbedela. Su'aasha haddii aan dib ugu noqonona, bani'aadamkii ugu horeeyay dhulka sida uu qaaradaha ugu kala firdhay, kala fogaanta dadka u dhaxaysay mar walba oo ay sii dheeraatay, luuqadii orijinaalka ahayd waa ay sii dhuuntay. Waxaa la isku dayay iyada oo aragtidani la adeegsanayo in luuqadaha adduunka oo dhan loogaga hadlo in waxyaabaha ay ka wada siman yihiin in la ururiyo, si uuna haddii luuqadii orijinaalka ahayd wax un loogu ogaan karo. Cilmi baaristanina waxa ay noqotay mid aqoon-yahanadu ay ku fashilmeen. Muxtamalanna sirta su'aashani marnaba bani'aadamku ma uu ogaan doono. Qaybta labaad ee su'aashuse, afka Maayga iyo Maxaatiriga kee baa horeeyey? Sida hadda oo kale su'aashani si cad in jawaab loo helaa aad ay u adag tahay. Laakiin lahjaduhu waa farac mar walba luuqadda asalka ka dhex samaysma. luuqad aanan lahjad lahaynna adduunka ma jirto. Lahjaduhu sida aan kuu soo sheegayba kala duwanaanta dhaqanka dadka, koox gaar ah halka ay degaan, qabiil, deegaanka waa wax ka soo ifbaxa. sidaasi darteeda afka Maxaatiriga ee loola jeedo afka Soomaaliga ayaa ka horeeyay lahjadda afka Maayga. Su'aasha kale u dambaysa, assalaamu calaykum, magacaygu waa Muxyidiin oo ku nool dalka Kanada. Alla ayaan kaaga baryayaa in cilmiga uu kuu barakeeyo. Su'aasheedu waxa ay tahay, sidee ayaan ku joogtayn karaa wax akhrinta? Ma jiraa isteebyo ama qaabab wax lagu akhriyo? Mahadsanid, waxaan rajaynayaa inaad iga soo jawaabtid. Wax akhrintu waa waxa aadka ugu dhibka badan dadka bilowga ku ah wax akhriska. In qofka uu bilaabo dhaqan wax akhrisa waxa ay uga baahan tahay sabar iyo joogtayn. Badanaana dadka qaladaadka ay sameeyaan waxaa ka mid ah in qofka uu akhriyo buug walba ee ka soo horbaxa. qof walba ma akhrin karo buug walba ee ka soo horbaxa. Buug walibana looma akhriyo, waa buug daraaddiisa. Xaaladahani oo kale ee qofka uu ku cusub yahay wax akhriska waxaa u wanaagsan in bilowgii qofku isku tababaro buugaagta ka hadla waxyaabaha uu xiiseynayo. Haddii aad tahay qof siyaasi ah ama siyaasadda wax badan ka fahamsan, buugaagta ay madaxda qoreen, taytalka hogaaminta, siyaasadaha adduunka iyo waxyaabaha la midka ah, buugaagta ka hadla haddii aad ka akhriso, adiga ayaaba akhriska iskaadii u jeclaan doona. Laakiin bilcagsi, adiga oo siyaasad ku mashquulsan, fahmi karana siyaasadaha caalamka sida ay u socdaan, marnaba buug fisigis ah ma akhrin kartid. Si waliba oo aad isugu dhibto, waqti un inuu kaa khasaara mooye way adag tahay ama waqti dheer ayay qaadataa buug fisigis ah inaad fahamtid. Haddii aad tahay qof diinta ku wanaagsanna, akhri buugaagta diinta ka hadla. Haddii aad sheekooyinka xiisaysana, akhri buugaagta sheekooyinka ka hadla. Qof walba marka uu sida kategorigiisii buug uu ugala soo baxo, waxaa u dhimanaanaya in qofka buug uu ku akhriyo meel aanan buuq lahayn, wax teknoloji ahna aysan u dhoweyn. wax qofka mashquulin karaa oo dhan meel aysan ka dhoweyn oo cidla ah qofka inuu tago oo buugga uu ku akhriyo, waxay u sahli doontaa qofka in si fudud akhrinta buugga uu la qabsado. Muddo bil ah haddii qofka maalin walba 5 beej uu akhriyo, isbeddel aad u weyn ayuu qofka muddo bil ah uu ku dareemayaa. Si kooban buug inta aadan akhrinin, mar labaad naftaadii fiiri oo ogow waxyaabaha adiga aad ku mashquulsan tahay, waxyaabaha aad danayso, waxyaabaha aad fahmi kartid. Kadibna nidaam tababar oo hal bil socdaa naftaadii u sameey. Hubaal waxaa ah in isbeddel aad u weyn muddo kooban aad ku dhex arki doontid.